anigu xanaan jiray markaan yaraa dadka ninbasi buu yaqaanaaye qof aad qalqaali u ah aniga weliba qalqaalinimadaydi heerar aan la gaadhin dee oonan weli kuba aragba qof binaadan u gaadhay ayay ahayd waa tahay iskuulka markaan dhiganayay aniga macallimiintu xitaa way macallimiintii markii aan yaraaye intii ka horreysay standard 4-kayga yani macallimiinta waan isla dhib mudanay anagu waa tii dadka la wulayn jiray anigu u shani waxa ii ahaan jirtayba waxaan dardar ka sii qaado deetana qaladaadka bulshada laga ilaalinaya anu waxaan u samayn jirayba si kasiya maana deetana xaaladdaa ku jira oo iminka haddii waddada una sii qaadi lahaa noloshayda iminka ayay si sawiran tahay cadaabaadtaan ku jiri lahaa ayaa waxa dhacay maadada af carabiga ayaa waxa la yidhi waxa laga dhigay beriga 100 bay ahaan jirtay carabiguna ku tal maadada carabiga iyo diinta carabiga la isku qaadi jiray 100 bay isku ahaan jireen waa tahay 150 baa laga dhigay la yidhi anigu weligay kolkaa beriga maadadan carabiga maan dhaafi jirin 30 ba kolkaa waan iska iyada waan ka tanaasuli jiray gentleman's grade baa qaadi waaban dhici jirayba iyada waa tahay tana waxa dhacay yani tasawufkii baan soo socday halkaan iska soo galnay waxa dhacay 150 maadadii laga dhigay baa la yidhi deetana waxaan qaatay go'aankii ugu horreeyay noloshayda ee aniga iyo naftaydo keliya taan qaadanay aanan hooyaday ka talagelin walaa cid kale aan ka talagelin abo dee ma lahayn hooyaday keliya tahay in korsanaysay cidlaan iskula baxay waxaan goostay inaan maadada af carabiga barto deetana ma jirta madarasada inta la tago si systematic looga bartaa ma jiraan waxaan garanayaa uun dadka masaajidada ku taxani inay maadada carabiga xarfaan ku ahaan jireen waa tahay deetana masaajidkii ugu dhawaaban iska xaadiriyay waa miskid jaamicii gabilay kolkaa niman yaroo wadaadaa oo imtixaadkii ka mid ah ayaa xadiisul arbiciinay ku akhriyaan kitaab yaroo arbiciina laysiiyo waan iska akhristo kitaabkii baan dhameeyey laakiinse weli hadda aniga lama helin dawadaydii because kitaabkan anigu waan xafidayaa maskaxdaydii baa yar inaan yaroo 13 jir aan ahay waxaan uu marayo waan xafidayaa qor haddii la igula qori maayo xitaa ma qori karo wax alla waxaan xafiday oo dhan haddii la weydiiyo ma qori garanayo deetana kitaab kale la bilaabay isna waan dhameeyey aniga sheekh baan isku qaatayba waxay igu abuurmay wax yaroo istusnimo ah muxuu ahaa deetana anoo kitaab weyn oo ibn abajimra ah haysta oo ay ku qoran yihiin 294 xadiis oo Bukhariga laga soo saaray oo laakiin la sharaxay ku qoran yihiin ayuu oday ii adeera oo Sheekh Ismaaciil Cilmi Bashiir loo oran jiray ayuunba waan sheekh weyn adeerkayna ayaa igu soo baxay maalintii anigoo daaradda intaan la fadhiistay kor u qaylinayo istusnimo daraadeed ma garanaysa odaygii wuu igu farxay inaan kitaabka intaan la akhrisanayo adeer buu igu lahaa ma kitaabkan aad akhrisata haa Bukharigan aad akhrisataa dhulka in Bukhari la yiraahdo ma garanayo de waxaan xagga sare kaga qoran baaba jabro ma garanaysa waa tahay haayo kana akhristaayo quraanki ma dhamaysay ma yaal xaqaan socdaa waan ku yiri ma yaal xaqa wani xadiis Bukhari akhriye kor u qaylinaya way de toodagii intuu dhaqaaq joogsaday ayuu uu istaagay uu soo igu soo dhaqaaqay uu istaagay doon igu soo dhaqaaqay istaagay deetana wuxuu iga qaaday kitaabkii oo hooyada iyo guriga ku jirtay maryanay kitaabkan meel kaga xidh deetana gacantu ay qabtay waxba bay imu weydiinba aniga wax alla wax la igala tashaday ma jirin deetana sheekhi aniga ay tarbiyadayn doona oo anigu aan isleeyahay ma ahay ay tahayba aniga noloshayda qofka keliya ee aan tarbiyada yani tarbiyadan akhlaaqiga ee aan markii dambe ku weynaaday aan sheekha ilaahay ka soo koona wada tirinayo Sheekh Abdullaahi Xigsi Maxamed baa la yiraahdaa ayuu deetana iigay markuu iigay wuxuu ku Abdullaahi oo ninka diinta ay bar ida alla cid sheekhaygii u sheegtay anigu waxa ii daran carabi buu haasoma aniga halkan waxa iigay carabi bay geeyay carabi baro kolkaa muddada kutubta la ii akhriyo carabi ma baran waan xafidaa deeta markaan xafido muxuu haayay waxa ka garanayaba ma baahaba sheekhi wuxuu igu waayay tukaankan inaan sameeyo alla xaqiisa dambe
ayaan fadhiistaaye iigu kaalay gelinka dambe waa xilligan ciyaarta u banbaxo anigu yaa asxaabta in magaaladan gebigeeda aniga gelinka dambe ilaa habeenkii u sarreeya rawaxiyaa kowdhe tana waxaad moodaa sheekh inuu mar keliya taa aniga magnad laygu soo qabto kale sidii yani wax magnad mudday isu kay haysteen sheekhii iyo muxuu ahaaye iyo ciyaartaydii kolkaa layma qasbin layma baryin u layma qaadan xaafadda yada cidi lama soo hadalo kumay odhan muxuu ninkii u iman waayey muxuu ballantii kolkaa muddaan markii laygu uri gelinka dambe kaalay anigaa laysiiyey choicekii inaan anigu u tago iyo inaan anigu isku maqnaado ana ii taalla laakiinse waxa meesha ka maqan wax alle wixii macallin aan ku aqaanay oo dhan de in marka lagu waayo waalidka la yidhaahdo ninkii iman marka waqtiyada qaar in lagu qasbo wax ayaabihii macallin lagu yaqaano dhan baan meeshii ka waayey muddaan iska soo ciyaaray aduu markii bil kadib baan u imid isagii maxaad ku maqnayd iyo xageed ka dhacday waana tabaruc waxaan wax laygu dhigayaa lacag alla lacag layga doonaya ma jirto deetana waxa laygu uri waxbaa lai imleeyey waxbaa qor laygu uri dee xasan baa qoraya xasan malcaamadaani xabsi bay u ahaan jireen weligii higaadiyo xasan alxaaqa ku ima xitaa ilaa imakaanan garanayn recordun baad ahayd dee haa bay xitaa markaan alxaaqaan maraya alxaaqa saan ku ima xitaa garan maayaan because maba qori karaya anigu wax deetana dib baa laygu qaliqnto horta waxa laiga dhaadhiciyey in anigu ahay jaahil aan waxba garanayn because waa lay tusay inaanan waxba fahamsanayn markii lay tusay baa deetana waxaa dib laygu bilaabay wixii alif baa dib layga bilaabay deetana quraan kale layima gelin laakiinse af carabi noocuu doona ha ahaadee sida loo imleeyo loo qoro ayaa waxaan ku bartay muddo 3 bilood ah oo ninkaygii baran waayey weligay waxba ma garanaysa deetana ajruumi baa lai bilaabay deetana saasaan u waday halkan agtiisaan fadhiistaa ninkaygii gelinka dambe ciyaari jiray mudday i kala jiidanayeen aniga sheekhaygii iyo hiwaayooyinkaygii kale ciyaarta iyo maxay waayo aad baan u daayar 13 jir baan ahayd 13 jir 14 jir waad garanaysaa xilligaasi dee hamiga iyo ciyaarta iyo asxaabtu intay laagtahay aad iyo aad iyadoon la i qasbin aan la i ulayn aan weligii allihii hadal xuni odhan ayaa agtiisii baa toos laygu soo xidhxidhay waad ku xasishay waan ku xasilay markay ahayd 96 dabayaaqadiisii ayaa aniga iigu dambeysay asxaab iyo waxaan laga sheekeeyo sheekhaygaasaan anu iskaaga fadhiyay ilaa intaan jaamacaddaydii ka tegayey yaa halkaasaan ku ag xidhnaa markii hore waxa laii qori jiray khadu nuskha iyo khadu ruqca ayaan 2 page buuxiyaa halkaasaan fadhiyaa markii dambe waxa lai bilaabay kutubta suluuga iyo waxa ka hadlaysa sidan loo macallinka loo tixgeliyo sida cilmiga loo barto iyo ujeedada maxay loo diinta loo barta ay tahay waxyaabo noocaasiya anigoo amuud waxaan tagay diinta u bartay